We designed them to be trusted with our homes, with our way of life, with our world. But did we design them to be trusted? kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena technolojiga ee KOBAC halkan aad ka daawanaysaan waa NIIL MEDIA fadlan haddii aadan ka mid ahayn akhyaarta ku xidhan channelka subscribe saar haddii in la sameeyo robot doqsiga la xajmiya waa mid aaminadeedu adag tahay hase yeeshee shirkadda Festo oo looga bartay ikhtiraacida robotada ka samaysan systemka bioniga ayaa ka dhabaysay samayntiisa robotkan doqsiga oo kale ayaa loogu talagalay arrimaha basaasida iyo sidoo kale cilmi baadhista taasoo aadamaha ka saamaxaysa sidii loo ogaan lahaa waxyaalo ku duugan meelo aragtidu aanay qabanayn robotkan ayaa daaha laga qaaday oo caalamka loo soo bandhigay 2013 qaab dhismeedkeedu waa sida balanbalista kale laakiinse waa mid kamid ah robotada ay soo saarto shirkadda laga leeyahay dalka Jarmalka laguna magacaabo Festo robotkan balanbalista waxaa loogu talagalay hawlaha basaasida iyo sidoo kale cilmi baadhista meesha aanay aragtida aadamuhu qaban karayn iyo wixi kaloo la mid ah robotkan ayaa daaha laga qaaday oo caalamka loo soo bandhigay sanadkii 2015 shirkadda Boston Dynamics ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa sanadkii 2016 shaacisay robot loogu magac daray Sport Mini kaasoo leh qaafiyada ayga oo kale robotkan ayaa dhabarka ku leh gacan la mid ah u eg gacanka maroodiga robotkan ayaa la sheegay inuu aadamaha ka caawin doono dhaqida weelka iyo ka shaqaynta meheradaha sidoo kale robotkan ayaa kamid ah dhowr robot oo ay samaysay shirkadu kuwaasoo isku qaafiyad eeg laakiinse midba midka kale ka xajmi weeyahay robotkan ayaa u qaafiyad eeg harimcadka oo kamid ah xayawaanada aadka u dheereeya sida cinjirkana u kala baxa kuna nool duurka robotkan ayaa lagu qiyaasaa xawaarihiisa mid aad u sareeya walowba aanay isku mid ahayn harimcadka laakiinse shirkadda Boston Dynamics iyadu soo saartay ayaa ku doodaysa in ay mustaqbalka isku mid noqon doonaan robotkan ayaa daaha laga qaaday oo caalamka loo soo bandhigay sanadkii 2012 laakiin waxaan u malaynayaa adigan ii daawanaya in ay maanta kugu horeyso maqlidiisu taasna ma aha wax ceeb ah waa arrimaha Soomaalida iyo sidoo kale sida aynu u xiisaynayno arrimaha technolojiga oo aan inaga ahayn mid reality ama dhab ku salaysan Simo waa robotkii ugu horeeyay ee si heer sare ah loo sameeyo waxaana si rasmi ah loo soo bandhigay sanadkii 2000 waxaana samaysay shirkadda Honda ee laga leeyahay dalka Japan magaca Simo waxaa loo doortay in lagu sharfo Isxaaqa Asimov oo ahaa professor iyo qoraaga buugga lagu magacaabo I Am Robot sanadkii 2014 filimka laga sameeyay Isxaaq Asimov waxa uu ahaa qoraa Mareykan iyo professor cilmiga biologiga dhinaca jaamacadda Boston waxna ka dhigi jiray jaamacadda Boston wuxuu caan ku ahaa shaqooyinkiisa khiyaaliga sayniska iyo sayniska caanka Asimov waxa uu ahaa qoraa caan oo wax ka qoray ama tafatiray in ka badan 500 oo buug iyo ku dhawaad 9,000 oo xaraf